sidaan horeba idinku sheegay barnaamijkeena maanta gebi ahaanba waxaanu ku faaqidi doonaa wargeys cusub oo ka soo baxay magaalada Minneapolis wargeyskaasi oo loo yiraahdo Carwa waxa uu ka duwan yahay qaabka iyo hanaanka aad ku taqaaneen inay u soo baxaan wargeysa fara badan oo Soomaaliya oo aad meelo kala gedisan oo caalamka ku aragtaan isla markaasina waliba qaar ay ka soo baxaan gobolka Minnesota wargeyskani waxa uu sameeysan yahay sida magaziinada caalamiga ee ka soo baxa wadankan oo markaasi ku cajab gelinaya haddii aad aragto haddaba waxa ay suuro gashay in aanu tifaftiraha majaladaasi aanu stuudiyaha Somali TV ku casuuno isla markaasina bal aynu wax ka weydiino ujeedooyinka iyo hanaanka markaasi wargeyskani uu shaqayn doono waa kan Maxamed Martel oo ah soo saaraha barnaamijkaasi ama wargeyskaasi oo haatan stuudiyaha la fadhiya Maxamed ku soo dhaw Somali TV maxamed waxaan la soconaa wargeyskani inuu soo baxay dhawaantan oo meelo fara badan aanu ku aragnay bal iga waran ugu horeynta ujeedada iyo asbaabihii loo aasaasay wargeyskan aad ugu magac darteen Carwa wargeyska Carwa sidiisaba wuxuu ka yimid kadib markii aan muddo sanado ah aan ka shaqayn jiray ama aan u publish garan jiray magaziino ay leeyihiin Etoobiyaanka iyo Eritreaanka iyo jaaliyadaha geeska Afrika isweydiin badan ayaa dhalatay marka maxaa loo heli waayay magazine ama wargeys qaab qurxoon oo waxyaabaha uu xambaarsan yahay ay aad iyo aad uga tarjumayso jaaliyadaha Soomaaliyeed ee wadankan Mareykanka iyo Canada iyo waliba xataa meelaha qaarkood Yurub ku nool arrinkaas awgeed aniga iyo dhalinyaro fara badan oo aan saaxiibayn ayaa waxaan ka wada hadalnay wargeyska magaca uu qaadan doono waa meesha uu ka yimid magaca Carwa halkaas oo magacyo badan markaan isla fiirinay aan go'aan ku wada qaadanay in magacu noqdo mid gaaban oo qurxoon oo Soomaali ah oo dadka Soomaaliyeed iyo dadka kale aan Soomaalida ahayn bay carab ku wada qaban karaan meeshaas ayuu magaca Carwa ka yimid oo run ahaantii magac gabar aan la xambaarsan tahay laakiinse aysan sidaa ku imanay dadkii igala shaqeynaya magaziinka ay doorteen magaziinku waa wargeys aan ugu talagalnay inuu run ahaantii noqdo codka shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dibadaha kuwaasoo waayadan dambaba ay badatay wargeysa aad u fara badan oo bilicdooduna aanay fiicnayn waxyaabaha ay xambaarsan yihiin aanay ahayn kuwa ka turjumaya danaha shacabka Soomaaliyeed marka aad leedahay marka danaha ayaan ka turjumaynaa shacbiga kulli wargeys kasta oo jira waxa uu tilmaamaa inuu danahaasi ka turjumayo marka waxyaabaha qaaska ah oo aad ku tilmaamayso ee leedahay danaha noocaas aan ka hadli doonaa maxay waa midka koowaad waa su'aal aad u fiican oo midka koowaad wargeysku waa wargeys ay wax ka qoraan dad fara badan oo kala duwan oo Soomaaliyeed oo aan isku bahaysan waxyaabaha waqtiyadan macaadada noqoto dadku isku bahaystaan wargeysku wuxuu u furan yahay cid kasta oo Soomaaliyeed ee run ahaantii haysa fikrad wax u qaban karta horumarinta danaha shacabka Soomaaliyeed markaan danaha shacabka Soomaaliyeed kale waxaa kamid ah midka ubadka aan dhalnay oo hadaad sidaad aragtay barnaamij kamid ah barnaamijyada oo xambaarsan ay tahay kalaab aan u sameynay caruurta Soomaaliyeed si wax looga qabto ama loo horumariyo ama loo wanaajiyo wax qorista iyo wax akhriskooda waa ka hadli doonaa arrinkaas markaan dib u soo waxyaabaha aan ka hadli doono waxaa kamid ah qoyska iyo caafimaadka oo aan isleenahay waxaa jira shacab aqoon-yahano Soomaaliyeed fara badan oo u baahan platform meel ay fikradaha ama waxyaabaha muhiimka u ah qoyska Soomaaliyeed iyo caafimaadka ay ku soo bandhigaan wuu u furan yahay qof kasta oo Soomaaliyeed oo waan siin doonaa ciwaanka ay nagala soo xiriiri karaan waxaa kaloo kamid ah dhalinyarada iyo ciyaaraha waxaa loo baahan yahay dhalinyarada inay helaan platform ay waxyaabaha u baahan yihiin ay lagu soo bandhigo si ay ula socdaan waxa adduunka hadda ka socdo iyo meelaha ay joogaan waxaa kamid ah aqoonta iyo sancada waxaa kamid ah dhaqanka iyo suugaanta markaan dhaqanka iyo suugaanta leeyahay waxaan majaladan cadadka koowaad inta aanu soo bixin aan maalmaha kamid ah la kulanay abwaan Saciid Saalax oo aan wada naqaano waxyaabihii uu nagu dhiirigeliyay waxaa kamid ahaa in la xoojiyo suugaanta Soomaaliyeed iyo soo bandhigideeda Carwa magazine wuxuu fursad weyn u siin doonaa in wax allaale wuxuu ku saabsan dhaqanka iyo suugaanta lagu soo bandhigo halkaas marka aan ka gudubno waxyaabaha kale oo kamid ah oo aan ku soo bandhigi doono waxaa kamid ah mawduucyo kale aad u fara badan sida ila tali ila qosol maxaan ku raahdaa barnaamij aan ugu talagalnay oo yiraahdo geesi talwaay geesi talwaay macnihiisu ma ahan in
tolnimadii Soomaaliya iyo wixii Soomaaliya waa waxa ay darbabi ugu soo dhacay ma naga daayo geesu talwaay laakiin geesu talwaay waxaan ugu talagalnay in lagu soo bandhigo qof kasta oo Soomaaliyeed meel allaale meeshu doono Soomaaliya ka yimaadee waxa uu shacabka Soomaaliyeed u qabtay in loogu mahadceliyo yiraahdo waad mahadsantahay waxaan filayaa inay magacaasi loo bedeli doono geesi tol helay oo kale مثلا geesi tol waa gartay Martelo waad qodobaysay oo run ahaantii qaybo kala gedisan baad tilmaantay oo aad u xambaarsan waxyaabo kala gedisan sida aan u jeedo intaasoo dhan baad ka hadashay inuu xambaarsan yahay marka journaalku af Soomaali baad kulli hadda ku hadlaysaa Carwana waa magac Soomaaliyeed saan dareemayo marka journaalku ma wuxuu noqon doonaa mid af Soomaali wax ku tabiya oo dadka Soomaalida la hadla mise luqadda afka Ingiriiska waayadan aad moodaba dad badan oo Soomaali luqadoodii noqotay ayuu soo bixi doonaa wargeysku wargeysku wuxuu ka hadli doonaa luqadda Soomaaliga iyo midda Ingiriiska sababta aan u sameynay waa mid iska cad waxaa jiro number cadad aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo wali afka Soomaaliga ku hadlo oo afkoodii koowaad u yahay oo wax ku fahmo wax ku akhristo taas waa mid aad u muhiimsan in la tixgeliyo waxna loogu qoro haddana waxaa dhinaca kale jiro ubad fara badan oo ayagu aan afka Soomaaliga kuna waxna ku akhrisan karin kuna hadli karin muhiimna waxa inaan meesha laga saarin dadka lala hadlay in ayaga yihiin hataa marka waana muhiim in ayaga aynan banaanka aynan dhigin oo aan waxay fahmi karaan wax ugu qorno waa midda keenta marka in labada luqadoodba ay isbarbar socdaan oo haddii barnaamij ku saabsan dhalinyarada iyo caruurta oo ay tahay in lagu baahsho oo lagu fidiyo wargeysku in Ingiriis lagu qoro laga marmaan ay noqonaysaa waxyaabaha kale u baahan sida dhaqanka iyo suugaanta iyo waxyaabaha qoyska iyo caafimaadkana waxaa muhiim ah ayadana in af Soomaali lagu qoro si waalidiintii dadka af Soomaali ku soo bartay ay maxaan ku iraahdaa iyo waliba hataa laga yaabo kuwan aan Soomaaliga ku hadlinay daayirtaada aad tilmaantay qaybtan af Soomaaliga ee dhaqankooda iyo suugaantooda iyo sheekadooda inay markaas wax badan ka helaan marka ka sokow Soomaalida oo aad sheegtay in qaarna Ingiriis ku hadlaan oo ay muhiim tahay in la tiigsado kuwana ay Soomaali ku hadlayaan ma isleedahay journaalku noqon karaa markaas mid dadka aan xataa Soomaalida ahayn oo gobolka degan ay ka bartaan dhaqanka ama afkii Soomaaliga ama markaasi fariin u sida ayaga qudhooda correct waxaan rabaa inaan daawadayaasha barnaamijkan u sheego in ilaa iyo 23 qof oo aan Soomaali ahayn ay subscription u samaysteen in wargeyska bil kasto loogu diro gurigooda dadkaasi waa kuwa hay'ado ka socdo qaarkoodna waa kuwa meelaha goobaha waxbarashada ka socdaan macnaheedu maaha inay dhammaantood afka Soomaaliga ay xiisa u qabaan laakiin waxay aad u daneynayaan in afka Soomaaliga wax ku qoran ay helaan si ay ama uga faa'iidaan waxa ku qoran iyo qaabka u qoran yahay journaalka maran akhriyay magaziinkaagan waxaan dhexdiisa ku arkay qayb aad ugu magac darteen Soomaalida maanta waa la isweydiin karaa su'aalo badan baa ku xayndaaban arrinkaas isaga ah ta ugu horeysa maxaa loola jeedaa Soomaalida maanta hordhaca aan ku sameynay cadadka koowaad ee barnaamijka Soomaalida maanta waa barnaamijkan ugu talagalnay in uu noqdo taxanaha Soomaalida maanta aan ugu talagalnay inaan ka hadalno wixii Soomaaliya ay soo ahaan jirtay iyo meesha Soomaaliya ay joogto waxaan ka hadli doonaa afkii Soomaaliga oo mar la dhihi jiro Soomaalida waxa lagu yaqaanaa afka Soomaaliga ah laakiin maanta waxaan naqaanaa in Soomaali badan ay ku hadasho afaf kala duwan afka Soomaaliga aan ahayn maxaa iska bedelay afkii kaliya ee lagu yaqaan qoomiyadda Soomaalida maanta maxaa bedelay maxaa afaf oo kala yimi waxaa kamida diintii Islaamka oo aan naqinay in Soomaaliya la dhihi jiray waayada kamida boqolkiiba boqol Soomaalida waa muslim maxaa ayadana iska bedelay waxaa kaloo kamida dhaqankii Soomaaliga oo aan ogeyn in Soomaalida ay lahaayeen dhaqan iyo hidde meel kasta ay joogaan isku dhow oo bulsho ahaan aad u fiican maxaa iska bedelay dhaqankii sababta keentana kolley ay caddahay dagaaladii dhacay iyo qaxi la qaxay iyo waxyaabahaas iyo ummadihii kale ee lagu dhex noolaa tusaale ahaan maalmaha ka mida article ama qodob aan akhrinayo waxa ahaa in Soomaali badan ay ku hadasho afka Amxaariga Soomaali badan ay ku hadasho afka Sawaaxiliga maxaa keenay sababtoo ah 20 iyo dhowr sano dagaalo socdeen iyo dadkii qaxayay dad badan oo Soomaali ayaa wadamada dariska u qaxay afafka Ingiriiska iyo Carabiga waa afafka aadka Soomaalida ugu hadlaan hadeerta marka boggan Soomaalida maanta waa bog aan ugu talagalnay in maskaxda dadku dib u celiyo yiraahdo waxaasna way jireen Soomaaliya
soomaalida maantana waxaan baa jiro aad iyo aad